لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولم يريد كذب إلهي بمحض سبحانه وتعالى، إلهي بمحض أردمي أيوسوناتي الله بالآدم نغالي أي نغم نستي نمعاد عقلك nimcooyinka ugu waaweyn oo haysano marka laga yimaado islaamnimada waxa koowa caqliga waa waxay bini'aadamku ku miisaamayayba waa caqliga weeye. ilaaha caqliga ina siiyeen ku mahadinaynaa. ilaaha subxaanahu wa ta'ala waxaynu weydiisanaynaa inuu caqliga inagu tuso dariiqa san ee toosan. awoodna ma lihiine haddaanu alla garab ina siin iyo ilaahay aanu inagu kaalmayn inaynu caqliga wanaagga ku garanno kuma garanayno, laakiin ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay caqliga inagu gaarsiiyo ta wanaagsan, isagaa awood leh. walaala sidaad ogeysiiskaba ku maqasheen, tamarta aadamaha wuxuu noqon doonaa barnaamij taxano noqon doona, laakiin barnaamij guda ballaaran weeyaan. maanta waxaynu kusoo qaadanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo hal xadiis oo ka mida أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث كاسو بينو فلقين دونا درسيجين نروح ونقن دونا حديث كا إن شاء الله تعالى. والله الحديث كا رسولك وحكولي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبو هريرة ورينا يوم إلى هي أكر عليها هذا رسولكنا صلى الله عليه وسلم ولي أبو هريرة وحصوص على إمام مسلم في صحيحه وحلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. انت آنان أقود قلين وداقيد ما تاين وداقيد دونا فلقينت هل كان حديث يا كم إذا حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه وحا وحيا كارن دونا وأرار يمقدمي يهرعنا عن كان دونا وحياليه يقول كلفي إن الحديث كان درسي كان على الله صفراء oon idinla yimaado wixii igu kalifay mid iyo laba ka mid a ayaan idin sheegi doonaa inta aynaan darsigan iskugu nimid maanta aynaan gudagelin. ta koowaad waxa weeyaan waa inay iswaanino dhexdeenna, waayo ummad hadday iswaanin weydo wax weyn baa ka maqnaanaya. taas waa ta koowaad, nasiixada iyo tadkeeda weeyaan. iyo inaynu isbaraarujinno waa qodobka koowaad. waad ka wada dharagsan tihiin inaan sheekh weyn oo caalimo ahayn oonan halkan u fadhiyin, laakiin ahmiyadda aan halkan u fadhiyaa
ومد كليا وحويا إلى نسكوك إلى نسكو وراقنا oo de waxa la yiraahdaa hadii biyo fariisto oo la waaqo wixii loo sokay dareemadeena hooste inagu jira inaynu xanxantayno ay naga soo dhex baxaan dad u taagan booskan oo istaaga oo wanaagsan iyo isbaraarujin qofka muslimka iyo qofka kale uu baraarujinayo daalib cilmi baan ahay haddii intaasi aan hore uga sii yar durko waxyaalaha iga kulifay waxaa ka mid a 2012 laga soo bilaabo ayaa waxaan ku foogaraa aqoon ka mid a aqoonta oo xiiseeyo si kedisa unaan u galay ayaa buug kastoo aqoontaas ku saabsan meesha ka heliyay soo ururinay aqoontaas waa human development ama waa tanmiya bashariya waan akhriyay mid kastoo qoraalkiisa iyo wuxuu qoray ayaa intii anoo naftayda ka doonayo aad uga helay ayaa soo ururiyay ilaa imikana kama xiisa dalkin waan akhriyaa sidaan aqoontaa waday ee bari iyo galbeedba culimadeeda aan soo urursaday bari markaan sheegay waa culimada muslimka galbeedna waa kuwa maraykan iyo yurub jooga waxaan wax ka akhriyay buugaagta kuwa ugu waaweyn ee aqoonta loo noqdo Stephen Covey, Wayne Dyer, Dale Carnegie iyo qaar kaloo badan ayaa buugaagtoodii soo qaatay si aan aqoontaasoo ka hadlaysa horumarinta qofka aadamaha sidoo kale kuwa barigaan akhriyay sida Dr. Ibrahim Faki iyo Dr. Darq Suwaydan iyo qaar kaloo badan ayaan xoog u akhriyay aqoontaas sidii aan u qorayay oon islahaa talo ummadaaduna miyay kula dareento waa wax fiicane unbaa maalin maalmaha ka mid si kedisa alxadiis rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiistiisa ka mid ayaan qayb yaroo ka mid arkay qaybtaas waxay ahayd halkan xadiis weeye qaybtii horeysa arkay waxa weyn ihris calaa maa yanfacuka ku dadaal wixii ku anfacaya waynu micnayn doonaa xadiiska waxaad moodaa markii u horeysay in xadiiska maqlaynay tahay xadiiskana waqtigaasi maalmahan dhaweyd imika bilayar ka soo wareegin markaan dib intaa u arkay waxaan barashadiisa iyo dhowr iyo 20 sano haddaan 30 ku dhawaad ayaan dee maraan khudbad ka maqlayo markii la dhigayayba aan hayay waxaad moodaysa inuu cusub yahay oo kale garan maayo sababta in ay iskaashanaysay aqoontii horumarinta aadamaha shaqeeyay iyo xadiiskani wax igu kiciyay garan maayo dareen weyn ayaan halkii ka qaatay xadiiskii baan daraasiyey oon eegay casharkan maanta aynu qaadan doono ayaa ka soo baxay ilaahayna waxaynu leenahay allahayna waafaji waxa wanaagsan ee aad raallida ka tahay taasi waa xadiiska xadiiskan culimo badan baa sharaxday baab al-mujaahada riyad saalihiin ku yaala muslimna uu ku cadiyay kitaabkiisa culimadina waaweyn rahimahumullah waxay sheegaan inaanu xadiiskani ka tegin wax ku saabsan guul qof bila aadane uu doonayo rabo jidkii loo marayay aanu dariiq ilaa uu inoo tilmaamay aanu ka tegin fura kaste iyo jid kastoo loo maro guusha aynu higsanayno inuu tilmaamay bay sheegaan culimada qaarkood na waxay sheegaanay yidhaahdaan sida Cuthaymiin oo kale haddaynu xanuunka ku jira xadiiska qaadan lahayn waynu raaxaysan lahayn labada qodob walaalayaal u fiirsada akhi muslim wa ukhta muslima waxa weeyaan bashariyada adduunka joogto oo dhan wixii ay raadinaysayba xadiiskan uu isku fooqsaday iyo xadiista kale rasuulka taasna waxa weeyaan waxyaalihii nabiga gaarka loo siiyay sallallahu alayhi wasallam gaar nabiga waxa loo siiyay jawaami'ul kalim kelmadaha kooban ee haddana micnaha weyn xambaarsan xadiiskana ka mid ah weeraha ku jira weer la kaliya sharax hadii la yiraahdo buugaag badan ayaa laga qori karaya oo sharaxaadeeda laga sharxi karaya markaasi rasuulku alayhi salaatu wasalaam xadiisku wuxuu ku bilaamayaa sidatan hadaynu guud galno labada qodob taanidii dhameeyay labada qodob bashariyadoo dhan ku dadaalaysay wada rabaan waxa weeyaan inuu qofku guul helo iyo in sacaade iyo baraale boneekh laabta ay u deganaato in neecaw laabta uga marto uu bilaawar wariyo walaac noqdo
aadamuhu labadaasoo buur iyo beriba u fuula siduu guulu hanteen lahaa la taaban karo iyo sidii qalbigiisu u deganaan lahaa labadaba xadiiska waynugu tegi doonaa inta hore waxay tilmaamaysaa jidkii aad u maraysay guusha waqtigaagu xadiiska nebigu waa 1400 iyo jarjar inta dambena waxay tilmaami doontaa as-sacaada liibaanta baraaraha booneerta iyo wanaagga waa labadaas haddana iskaashan uu qofku warwarayo uu walaacayo guul adduunyo iyo tu aakhiraba ma gaadhayo labadiiba way iskaashanayaan markaas qofku ku rumaynaya waxaynu u qaybin doonaa 5 qaybood xadiiska 5 weerood ayaynu casharkeena maanta xadiiska nebiga u qaybin doonaa weedha koowaad wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam weedha koowaad waxa weeyaan almu'minu alqawiy khayrun wa axabu ila allahi min almu'min daciif u fiirso rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay af soomaali ahaan horta haddaynu ku micnayno almu'minu alqawiy muuminka xooga weyn baa khayrun ka khayr badan wa axabu ila allahi min almu'min adaciif muuminka xooga weyn baa ka khayr badan allena ka jecel yahay muuminka daciifka ah haddaad intaa u fiirsataan walaalayaal rasuulku wuxuu tilmaamayaa 2 qof lab iyo dhadig kay doonaan ha noqdaan waa 2 qof labadubana waa muuminiin waa maaragtaa labaduba waa muuminiin laakiin mid baa ka sigta ka kale 2 sifo waaweyn khayriya iyo maxaba labadii qof ee muuminka ahaa lab iyo dhadig basaale soo sheegna kay doonaan ha noqdaan mid baa ilaahay ka jeceliyay ka kale kana khayr badan yahay halka waxaa ku jirta hal sababuu ku mutaystay kani inuu ka kale ka sito halkaasina waxa weeyaan qawi waa quwa inuu ka awood badan yahay ayuu kan kale kaga khayr badan yahay haddaba waxaa isweydiin mudan quwadan iyo awoodani maxay tahay awoodan uu kani ka dheer yahay waxay noqon kartaa 2 awooddaas waxay noqon kartaa 2 waxay noqon kartaa tu maadiyo la taaban karo oo saa loo taaban karo maadiyo la arki karo iyo tu macnawiya oo qarsoon wuxuu muuminkan kale kaga khayr badan yahay waa labada awoodood midkeedu bay noqon kartaa ta hore haddaynu ku horeyno awoodda macnawiga ee la taaban karo waxaa ka mid a dee tan jirka hadduu awood badan yahay dee in badan inuu sooma in badan inuu islaadayo laga yaaba waxaa ka mid a ta macnawiga ee la taaban karo awoodda aqoonta waa awoodda kale la taaban karo waxaa ka mid a awoodda lacagta iyo nimcooyinka ilahay hadduu ilaahay ku siiyo waa awood taasi waa awood laakiin u fiirso walaal awooddaasi macnawiga la taaban karaa ammaanta ma laha keli ahaanteed maxabadu rasuulku sheegayo iyo khayrka rasuulku sala allahu alayh wasalam markay sideedaa tahay ma yeelanayso awooddaasi waa sidii loo adeegsado haddaad khayr iyo wanaag awoodaha aada haysatee macnawiga la taaban karo ee tu xoog leh tu dhaqaale leh ee tu aqoonood leh iyo wixii lamida leh waa sidii aada u adeegsato haddaad positive ama ijaabi ama salbi si negative ah aada u adeegsato sidii aada la marta ayay tahay dad ilaahay awoodo badan siiyey baa jira awooddoodaba aan arag bal inay kama faa'idaystaan iska daayay awoodba inay leeyihiin lagaba qariyeyba subxaana allah oon awooddaabay ogeynba iyo qaar ogo awooddoodii inay leeyihiin ogo si ilaahay subxaana wa tacaala uu faray maaha si kale oo adeegsada taariikhooga soo qaata haddaynu isnaa dadka noocaasa way badan yihiin qaaruun oo keliya waad maqasheen intuu ilaahay nimcooyin iyo wax la siiyey laakiin awooddiisii uu la leexday kuwa xoog waaweynaa ree caad way xoog waaweynaayeen taasi waa tii maadiga ahayd ee la taaban karayay intaa in la fahmay baan malaynay halkaas cadda ta macnawiga ah ee qarsoon awoodda qarsoone macnawigii aad bay u badantay kama laalaado haddaanay ka badnaynba awoodda la taaban karo
waato aynu wada haysano haddii aynu dibadda soo dhigno hadalladeeduna maadaaman xoog doonaya inay dhalinyarada arrinkaa fahmaan iyo dumarka iyo dhammaanteedba aynu fahanno jaanibkaasaynu ka eegi doonaa oo qodobadeenna ma wada dhammayn karneen waa xadiiskaan idiin sheegay 6 qaybood qayb keliya buugaag maktabaddan laga qori karaya tamacniwiga haddaynu nimaadno almu'minu alqawiy khayrun wa axabu ila allahi min almu'min daciif tamacniwiga markaynu nimaadno waxaa ka mid ah dee awoodda iimaanka ugu horeysa mu'min baa la sheegay wuu raacayaa micnuhu ta iimaanka inaad ilaahay rumayso malaa'igtiisa qeybka hadday wax kugu dhacaan aad ku sabarto qadarkiiyo wixii taasaa ugu horeysa taasi waxay jiidanaysaa oy waxa la yidhaahdaa qofka wixii ku weynunbaa waxa kale soo jiita awoodaha kale qarsoon ee iyaguna qarsoon aynu ka warrami doono ayay soo jiidanaysaa awoodaha waxaa ka mid a ta iimaanka ta kalsoonida nafta ta doorashada san kulligeed dhinaca positiveka marka laga eego ayaa ka mid a mid walba gooni uga hadla haddii aynu isnidhaahno way badan tahay iimaanka inaynu ka hadalno dersigeennu kuma saabsana kalsoonida nafta ka hadla haddaynu isnidhaahno dersigeennu kuma saabsana doorashada wanaagsan iyo awoodday leedahay waa wada awoodo ka hadla haddaynu isnidhaahno dersigeennu kuma saabsana tusaale laakiin ay awoodo qarsoon jiraan waxaynu ka soo qaadanaynaa ta doorashada horta mid ogowo habdhaqankeenna oo dhani waa waxaynu inagu dooranay arrinkaa ma caqligaagu ha gaadho oo aad fahantiid ama yaanad fahmin wax kasta oo qaabdhaqankeeniiba waxa weeyaan doorasho ayay inoo horreysay maskaxdeenna boorigram ku duubnaa sida aad u fadhiisataa inteennaad fadhigeenu kala duwan waa doorashada qofta si aad wax u cuntaa waa doorasho adu aad dooratay si aad u seexataa waa doorasho adigu aad dooratay waxaasoo dhani waxay ka mid yihiin doorashooyinka aynu inagu dooranay wixii aynu inagu dooranay ayay maskaxdu tabta barnaamijyada loo duubo ayay maskaxdu rikoor garaynaysaa wixii positive ama negative baad wixii u dooratay wixii baad qabsanaysaa waad ku celcelinaysaa markaad wixii ku celceliso ayuu wuxuu isku bedelayaa wixii caado kaa noqonaya hadhow toole waxay keenaysaa wixii fikirkaaga iyo doorashadu ah caadadii waxay keenaysaa in wixii aad u samaysa si sahlan tusaalayaasha wax lagu fahmaa nin baanu saaxiib ahayn dhalinyaraha ninkii dhalinyarada ahaynu saaxiibka ahayn ayaa markii u horreysuu gaari yeesho ayuu wuxuu go-aansaday mar haddii gaarigu ku cusub yahay inuu gacanta ku dejiyo gaari yaroo rafa uu gidaar walba la dhici karo hadhow toole markay gacanta u degto mid kale ayuu doortay inuu ku bedelo wanaagsan gaarigaasi markuu ka degays yidhaahdo daaqadda gudaha kamuu furi karayn oo iskaaliiska gaboobo gacanta inuu ku dejiyo inuu doonay marka waa inuu dejiyo oo dibadda ka furo uu dego markii u horreysay iska furo bisaa meeshii maran buu arkaa markii dambe wuu dejiyaa wuu iska furaa beri waan u fiirsadaa markaa beryihii dambe ilbiriqsi waa goormad inaga furtay albaabkii un baan odhan jiray ilaan wuu la qabsaday caade kastana waa la mid wax walanu samaynayno ilmahaa yar markuu baaskiilada bilaabayo uu doorto inuu baaskiilada hadhow talo lagama jarayo si ma uu bartay garan maayo waxaa la mida caade kaste ama ha wanaagsanaato ama ha xumaatee xan haddii aad barato lagaa kari maayo saamaxaad haddaad ku celceliso caaday kaa noqonaysaa inaad dadka wada saamaxdo marka si fudud baad u samaynaysaa waxaan ugala jeedaa wax kaste oo inagu aynu qabsanaynaa waa natiijadii doorashadeenna haddaba fiirso waa natiijadii doorashadii horeynu dooranay marka qofku wuxuu ku dawaan karaa inuu dib waddadii u qaado wixii uu iska gooyo uu iska jaro amuurahaasi way ka hadlaan dadka culimadeennu aada iyo aad arrimahaasi si qoto dheer ayay uga hadlaano
ay tilmaamaan in uu caadadu ay tahay dee noloshaadii waxaad doorato. qoladan kale ee cilmu horumarinta aadamuhuna way ka hadlaan. mid iyaga ka mid a iyo laba aynu soo qaadano. bal waxaynu soo qaadanaa Albert Einstein wuxuu ka leeyahay doorashada markuu ka warramayo doorashadaada adiga inan yahay aad dooratay. iminka qof walba halkan wuxuu ku fadhiyaa doorasho wax wanaagsan inuu dhegaysto oo aqoon iyo nimco soo karsado halkan ku fadhiya. intan shallaabkeed baa dibadda joogta oo aan halkan dooran jecel, laakiin hadday is yidhahdaan kaalaya in buur ku soo dhacaysoo kale ay tahay. sababta halkan ku timid ilaahay doonidiisa kadib waa adiga doorashadaada. wuxuu leeyahy markaa ninkani doorashadaada minidkan aynu fadhino adu aad doorato wanaag iyo khayr waxaad adigu doorataa waxa weeyaan bilowga noloshaada cusub. imika waxaad fadhigan ku doorataa waxa weeyaan bilowga noloshaada cusub. sidoo kale waxaa ka mid a nin Chinese-ku ay u yaqaanaan xakiim oo magaciisa la yidhaahdo Confucius. wuxuu leeyahay waa nin ay aada uga dambeeyaan bugaag badanna leh, dadkii waktigaa ula joogayna xikmad badnaa oo Chinese-ka ka mid a. wuxuu leeyahay waxa ugu weyn awood ahaan nolosheenna u fiirsan ka xakiimka ah waa inuu muslim baynu meel kasta ay xikmadi taallo waynu qaadanaynaa, waynu ka faa'iidaysanaynaa. wuxuu leeyahay waxa ugu weyn awood ahaan nolosheenna waa awoodda doorashada. waxaad doorato adigu ayaa ah awoodda ugu weyn. waxaa laga yaabaa qaarkeen imika matalan tusaale yaroo fudud inay doorteen baa laga yaabaa habeenkii inay hore u seexdaan cishaayiga markay tukadaan. qaarkeen waxaa laga yaabaa inan baa waxay dooratay salaada cishaayi markay ka baxdo in ay seexato si ay ama salaatuleyl iyo faralkaa ugu weynay salaada subax ay u tukato. mid kalena wuxuu doortay in uu soo jeedo caawo dhan. waa beri insha allah saa noqon doontaa. hadda waxay isweydiinaya su-aasha dhalinyaraan idi weydiinaya ay tahay bal aduu qof walba buug iyo waraaqaado maxaad aduu dooratay. waayo waxaynu dooranno ayaa wuxuu noqonaya markaynu ku celcelina caado aynaan ka fikirayn. caadadii waxay isku beddelaysaa dhaqankii wuxuu isku beddelayaa masiirkeennii iyo nolosheennii bay noqonaysaa. ardaygu hadduu imtixaanka dhacada isagaa doortay inuu dhaco. waa hadallo halkan kuwa ku soo qortay ka mid ah ayaa waxa weeyaan guusha xataa waa doorasho. aday kaa soo goda inaad guul doorato. guul darradu sidoo kale waa doorasho. salaad inaad tukataa waa doorashadaada. salaad la-aan inaad noqotaa waa doorashadaada. hadalkaa maxaa caddaynaya? walaal waxaa caddaynaya hadalkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna ma dalmiyo. in allaha laa yadlimu qofnaba alla subxana wa tacaala ma dulmiyo. ilaahay naarta inamuu geeyeen haddaynaan doorasho lahayn. faman shaaa falyu'min waman shaaa meesha waxaa ku jirta doorasho. doorashadu waxaynu bini aadan u nahay, labadaa jid waxa loo sameeyey weeyaan. taasna waxay nooga baahan tahay inuu qofku ku tababarto jidka uu raacayo isaga gudihiisa ka soo daro. qodobkaasi u tusaalaha awoodaha qarsoon oo kulamadeenna dambena aynu qaar ka mida kaga hadli doonno. waxaan qodobkaa ku dhaafayaa sheeko yar oo ku saabsan laba wiiloo yaryar oo walaala ah oo isku aabba ah oo isku hooyo ah oo guri ku soo wada koray. u fiirso, horta waa isku aabbiyo hooyo. labadii qof waa isku aabbiyo hooyo oo haddii la odhan lahaa kana hooye kalaa dhashay ama kana aabbo kale way kala yar dalugsanaan lahay. gurina way ku soo wada koreen, da'na way isku xigaan. labadii inamood ayaa weynaaday oo koray. markay weynaadeen ee ay koreen baa midi kaalintii nolosha wuxuu ka galay inuu noqdo nin wax kastoo ammaano wanaagsan leh, ilaahay xarigiisa xidhiiriya, shaqaysta, bulshadii ka muuqda. midna wuxuu noqday qofka ugu liita mujtamaciya dhinaca kaleu ka galay. dadkiibaa yaabay magaalada la deganaa
waxay yidhaahdeen bal waa cajiiba labadan walaalay kala duwan aynu waraysano kii laga khayrka badnaa bay ka horreeyeen waxay yidhahdeen war walaalka waanu aragnaaye oo aduu sidee tahay de wuxuu yidhi waa rune soo aabahay ma garanaysaan aabihii baa isagana laga yar khayr badnaa aabbayaasha halkan kuma aflagaadinay laakiin waa tusaale wuxuu yidhi aabahay soo maydaana weyn aabihii wuxuu ahaa mid balooduhu jiiteen habeenkii guriga markuu soo galo isagiiyo hooyadoodis haysta xilli dambe wuxuu ahaa markaa wuxuu yidhi maxaad iga sugayseen marba haddaad aabahay garanaysaan buu yidhi kii hore loo tegay anayna noocee noqdo dee mar hadduu aabahayba noocaa noqdo aabaha laga khayrka badnaa anna maxaad iga sugayseen kii kalea loo tegay oo la yidhi war haadhe war halkaana waanu aragnay bal aduna horumarka waxaad ku gaadhay nooga waran wuxuu yidhi markaan ogaaday waddadii adkayd ee dhalinyaradu haalhayska iminka ay isticmaalaan tii qalalnayd bay yidhahdaan markay wax ka yaabaan oo markasoo aabahay maydaan ogeynu tii qalalnayd mari jiray haa de anna waxaan isiri tii qalalnayd aabahaa ku rafaaday hamar tii aabahaa ku rafaaday ee qalalnayd hamari baa ka baydh baan isiri weli tii buu ka baydhay oo sameeyey marka waxaad garanaysaa ee waa laba walaal kana wuu doorso wuxuu kuli mar hadduu odayguba sameeyey anna maxaad iga sugaysay muu taagayn kana wuxuu leeyahay waxaan doortay tii qalalnayd aabada inaan bedelo waa dareemi kartaan waxaan ugala jeeda awooddii talaag awoodda qarsoon inay noocaasay jirto waa dareemi kartaan aynu xadiiska intiisa kala galno waa weedhii koowaade 5 weedhoode wa fii kullin khayr buu rasuulku ku xigsiiyey sala allahu alay wasalam labadooduba mar hadday muuminiin yihiin khayr bay leeyihiin labadiiba khayr baa rasuulku ku sugan buu yidhi markuu rasuulku yidhi almuuminu qawiy khayrun wa axabu ila allahi min almuumin adaciif ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi wa fii kulli khayr muuminka xooga badan baa ka khayr badan allana ka jecel yahay ka daciifka ah markuu rasuulku yidhi labadooduba khayr baa ku sugan labadaasi uu khayrku ku sugan yahay weedha qolada balaaqada iyo cilmiga balaaqada waxay yidhaahdaan ixtiraas baa la yidhahdaa ixtiraaska waxa weeyaan hadal markaad sheegto siduu u yaallo si aan ahayn weedha dambe ay caddayso ayaa ixtiraas la yidhahdaa marka hore markaad u fiirsato muuminka xooga badan baa ka khayr badan allana ka jeceliya ka daciifkaa waxaad moodaysaa dee kii kale ee bilaa tamartaba aha tujir ahaanid ha noqoto tu kale inuu dee baad u dareemi kartaa marka rasuulku wuxuu leeyahy labadooduba khayr ayaa ku sugan arrimahaasi qur-aanka way ku badan yihin weeraha noocaas oo kale ee qaafkaas oo kale ixtiraaskii way qur-aanka way ku badan yihin inta dambe ay caddayso aayad keliyaynu ka soo qaadanayna ilaahay wuxuu leeyahy qur-aankiisa suuratu lambiyaa aayadda 8 iyo aayadda 9 suuratu lambiyaa ka mida ilaahay wuxuu leeyahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه قلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان إلهي وحلي qisooyin badan baa ka soo socday tusaaloon baynu wala jeednaayo ambiyadoo dhan bu ilahay ka warramayay ilahay wuxuu ley nebi alla waxaad ka sheekaysaa daa-uud iyo sulaymaan waa laba nebiyo isdhalay oo nebinimada boqornimo ay usii dheerayn wa daawuuda wa sulaymaan ka warran nebi allow waxaad weliba ka warantaa wakti ay ka garsoorayeen qoladii beerta lahayd iyo qoladii arigoogu habeenkii miray beerta labadaasi markay ka garsoorayeen nebi allow uga waran dadka ayuu ilaahay leeyay wa daawuuda wa sulaymaan id yaxkumaan waxaad ka warantaa wakti ay ka garsoorayeen filxarsi beertii id nafashat wakti ay meerteen ay usoo dharceen fiihi beerta gudaheega qanamulqowm dadka xoolahooga ay beerta habeennimo cuneen wa kunnaa lixukmihim shaahidiin ilahay wuxuu leey waktigaasi waanu joognay garsoorkooga garsoorkii ay samaynayeen kuwa jooga ayaanu ahayn bu alla leeyi fafahamnaaha sulaymaan garsoorka waxaanu fahansiinay sulaymaan intaa markaad aragto waa sidii xadiiska aynu kusoo arkaynay jumladuunbaa inala gashay intaa markaynu arkno waxaad moodaysaa fafahamnaaha sulaymaan baanu fahansiinay
in daa'uud wax ka naaqusan yihiin baad moodaysa saanay taasi u dhicin suu rasuulku wala almu'minu qawiy khayr wa habbi ilallahi min mu'min da'if ayaa wada dambe inoo dhamaystirto wa fi kulli khayr labadooduba khayr beelayin tanna waa la mid sulaymaan iyo daa'uud xilligaasi arrinkooda waxaanu fahansiinay sulaymaan buu ilaahay leeyahay oo inankii la dhalay laakiin alla wuxuu sii leeyahay wa kullan aataynaa xukman wa cilma labadoodaba xukun iyo aqoon waanu siinay weelaha qaabkaasoo kale yihi waxay ku badin karaa tusaalahaas kaliya ka soo qaadanayna taasi waa weedii koowaad halkaa waxaynu garanaynaa in aynu leenahay awoodo macnawiya oo qarsoon oo fara badan in ay nagu jiraan ayaynu qodobkaasi tusaale ahaan yar aynu u soo qadan weedha labaad waxa weeyaan weedha labaad waxay noqonaysaa walaalayaal ma maqashay ma kugu soo dhacday ma akhriday wax markii siduu doonaa kugu soo gaadho markuu ku soo gaadhay adiga aad istiri allah ilaahay waxaas waa wax fiican wixii markuu ku soo gaadhay aad la dhacday ood la shawqasto wallaahi waxaas waa wax ku anfacaya aad istiri laakiin muddo dabadeedba xaggiisii inaad tallaabo u qaaday iska daayood gaadhee aad sidii ku ilowday wax iska noqday dhalanteed ma dhacdaa waxaad way dhici kartaa mid kastoo inaga mida way dhici kartaa inuu wax intuu alla ilaahay garto uu kadibna halkiiba kasoo qaadi waayo haddaba waxaynu leenahay maxaa u sababa waxaa u sababa tallaabooyinkii dhammaystirnaa baa la qaaday ixris calaa maa yanfacuka wixii ku anfacaya ku dadaal saddex tallaaba ka dhalanaya waa tallaabooyinka tamarta aadama ama tallaabooyinka horumarinta qofka bini-aadanka saddexdaa tallaabo waa shidaalkii geedi socod nololeedkaaga haddaba waxay ku tahay garasho matala sida guud aynu uga warrano qodob waynu dhigi doonaa sida on generaal sida guud haddaynu uga warrano matalan inan ama inan baa waxay garatay inay wax barato waxay go-aansatay alla ilaahay qayrkaa waxaad ku gaari kartaa ada wax barta oo weliba baartaa dhakhtarnimo ka soo qaad neeras kalkaaliye ka soo qaad shayga alla ilaahay haddaad barato way fiicnaan lahayd muddo dabadeed unbaa la arkay inankii ama inantiyo halkiiba aan uga dhaqaaqin waxaa kala dhiman saddexdan qodob wixii ay garatay ay go-aansashatay ayaanay mas-uuliyaddeedii qaadin sidoo kale waxaa la mid a inta badan mujtamaciina ka dhaca inanbaa ama nin weynbaa habeen iyo maalin wuxuu ka cabanayaa oo si fiican u garanayaa balwadaha qaarkood inay dhib leeyihiin sigaar iyo qaadku alla le waa inaad iska daysaa way xun yihiin oo jeebkaygba ma yaallo garasho fiican buu arrinkaa u yeelanayaa markuu garto arrinkaasi ayaa wuxuu go-aansanayaa inuu iska daayo bil iyo laba kadib ayaad arkaysaa dee laba buu cuni jiray ama wax yaroo kooban in ka badan isagoo sitaa waana waxaa dhacay soodigiilaa waa iska deenaya oo gurigaa la fadhiyi karaa dumarkii carruurtii maslaafi kan weyneyd meel la istaagaa jirta ee waddanka mashaqaa taalla waxbuu samaynayaa cudurdaar qof walba bositiif iyo negatiif wuxuu qaato xujadeeda wuu haystaa ka dhaadhicin kari maysid laakiin waa adiga qofka doorashada leh ee le no sibamuasa kiifeeksa aniga maaha waxaa ka sameeya beenta ka sheega aniga maaha ka waxaasida aniga maaha kan xisbigan iyo maxay wax kala gurgura anigu astaan baan layan ku socdaa doorashada adaad leeday haddii si qoto dheer aad iila socotaan markii horeba kelmadii nabiga inoo soo sheegay ee ahayd aynu ku tusaaleynaynay doorashaynu kasoo qaadanay adaale marka waxa weeyaan waxaabad arkaysaaba matalan guddi baarlamaan dowlad jaaliyad urur cid baad arkaysaa wax wanaagsan oo dal iyo dad iyo diinba anficilaa ayay isla qaadaa dhigayaan way garanayaan way go-aansanayaan muddo dabadeed waa berigii baa isugu keen dambaysay baa la odhanaya waxa maqan tallaabooyinkii baa kala dhiman waa waxa dardaaranka nebiguna ina siinayo sidoo kale tusaalayaashaasi way badan yihiin marka ixris calaa maa yanfacaka waxaynu ka horeynaynaa inagoo waktigana shaxaadayna oo minidada hoosta ka eeganayna meeshay inoo karaysan tahay garashaynu ka horeynayna waa saddex gees garasho
go-aansasho garwa xilogudasho garasho go-aansasho xilogud waa saddex geeskaa dahabiga haddaad ka baxdo xaydaab kale oo culimada tanmiyadda aadamigu ayaa jira maalinteedana waynu soo qaadan doonaa laba qaybood ayuu barnaamijku yahay qayb waxa weeyaan inaynu ogaano horta ogaanshaha ugu horeeya ta dambana waa haw qaabkii oo labadoodba hadalkii iyo furfuridii ba u baahan laakiin darsigeena inaan idinaga dhaqaajiyo meel kale u boodo ma doonayo saddex geeskaa haddii aad ku jirto waad socotaa wey wixii aad garatay go-aansatay mas-uuliyaddeedii aad qaaday wixii waad socotaa garasho haddaba way fara badan tahay walaalkii halka fadhiyeyba aayado badan oo qur-aan oo garasho iyo heerkay leedahay inoo sheegay inay faclam annahu laa ilaha illa aad ba badan tahay angalkaan doonayay inaynu ka eegno waxa weeyaan garashada aan doonayo in aan tilmaamaa garasha way fara badan tahay waxa weeyaan garashada maanka fikirka kobcinaysa soo saaraysa himilooyinkeenna qarsoon garashada aynu u baahanay maanta waxa weeyaan in aynu garanno si fiican aynu u ogaano hibooyinkeenna qarsoon ee inagu jira garashada noocaas ee waxaa toosinaysa ayee sidaa tilmaamaysa ayaa doonaya angalkaa inaan tilmaamo seta aan rabo in aynu si qoto dheer u garanaa waa aqoonta fikirka toosinaysa awalan qofku halkan u ka toosa doorashada halka hadii barnaamijku qofku wuxuu duubto ayuu sameeyaa garashada toosinaysa hibooyinka qarsoon soo ifbixinaysa isku xiraysa qofka iyo noloshiisa dhabta ah matalan dhalinyarada kuwa jaamacadaha dugsiyada sare ka baxay oo fara badan oo meel walba jooga wixii uu bartay suuqa iyo wixii ku qarsoonaabaa isdhaafa waa markaa waxa weeyaan garashada ga bahna inuu qofku si fiican u garto hibadow isaga leeyahy si wixii uu bartay if iyo akhraba wax uga gooyo oo fikirka toosintiisu uu kow ka yahay arrinkaasi waxa si fiican u fahmay jiilkii uu macalinka u ahaa macalinka bashariyadu nabiyullaahi maxamed sala allahu calayh wasalam asxaabtii uu tarbiyeeyey si heer saraa ayay u fahmeen hibooyinka ay haystaan nin gabadh iyo wiilba si fiican inay uga faa'iidaystaan hibooyinka ay haystaan ayay fahmeen tusaale waxaan usoo qaadan karnaa asxaabta nabigeena sala allahu calayh wasalam milyan dheerkii asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam milyan dheerka badan bay asxaabtu lahaayeen maxaad waxay ka duwanaan doontaa qaybtii qalbiga waa caqli waxaanu si fiican u eegaynaa asxaabtu siday uga wada sinaayeen waraca xalaal miiradka runsheerka cibaadada way ka wada sinaayeen laakiin mid walba hibo gaar u lahaa tusaale waxaynu soo qaadanaynaa cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ka mid ahaa milyan dheeradii asxaabta nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa lagu sheegaa maalintii uu geeriyooday inuu ka tegay 2,200,000 oo dirham wixii laga dhaxlay baa la sheegaa meelaha haddana kama badnayn ayuu ka tegay cabdiraxmaan ibnu cawf baa maka ka soo hijrooday oo madiine yimid sida asxaabta kale iyo nebiguba ay usoo hijroodeen wuxuu gacanta sida asxaabta iyo nebiguba gacmahoogu ay u madheen xoolahay haysteen uga dhammaadeen oy dee ka yimaadeen dhulkoogii hantidoodii ay fuqaro noqdeen cabdiraxmaan oo qaxootiya ayaa madiine yimid kuwaasi ilaahay ka warramaya xoolihii u horreeyay nebiga soo galay inay fuqaro iyo dad baahan oo iyaga in wax la siiyo ay tahay tilmaamaya ilahay wuxuu ku leeyay suurat xashr lilfuqaraa'i almuhaajiriin aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim xoolaha waxaa leh muhaajiriinta fuqarada lilfuqaraa'i almuhaajiriin fuqaradii muhaajiriinta ayaa xoolahaa leh kuwaasoo ka yimid daarahoogii iyo maalkoogii ka yimid baa xoolaha leh faqrigaa uu ilaahay ku tilmaamay ayay halkaasi lahaayeen nebigu markaa wuxuu bilaabay markay soo hijroodeen asxaabtu dhulkoogii iyo daarahoogii ay ka yimaadeen inuu walaaleeyo asxaabta mid muhaajiriin iyo ansaar la walaaleeyo waxaa la walaaleeyey cabdiraxmaan bin cawf iyo sacad cabdiraxmaan bin cawf iyo sacad markii nebigu uu walaaleeyey
صلى الله عليه وسلم أي عبد الرحمن بن عوف وحوها نن دقالة حنتله وحكو وحنا سعد أنصاري وحكو يلي ولا وحنا حيدتك مدينة ولا عكت بدن واحد دون تحولا هيجي وحولا هيجي الله بانو قريب دونا بقول وحنا كتير أكو ما قبل الله بقى قريبنا هذا قادم دونا قريبنا على صحري دونا أفرض مرنا وان قبائل تي أدورته أيام كسين دونا marka ka baxdaad uu guurso oo fiirso sida uu hibadiisa oo garanaya Cabdiraxmaan bin Awf halkaynu tusaalaha uga jeedno weeyaan wuxuu ku yiri isoo faramaran bal imagine adiga inay haameynayay oo halka marka timid kaafka sida ugu bireetay walaa lagu mid ku ilaahdo Faransiisi ana halkan degano dadka halkan ugu lacag badan baan ahay intaasan haystay xoolahan oo ku kala qaybistay wayeen dhulka ma dhigi lahayn meeyna dhigi lahayn baa laga yaabaa مثلا وتصالحهم سكا إيماجن مركز عبد الرحمن بن عوف يسوي حقرني أبوه قرصان ولي وحلي هاي بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق عبد الرحمن بن عوف حكولي ولا كيسي حنتي لسيني لهذا مركز أنا متبع كوفريا إلى هاي حكو بركة أهل كذا maalkaaga ilaahay ehelkaaga iyo maalkaaga ilaahay ha ku barakeeyo labadaba laakiin aniga hibaan leeyahay gooliyo qarsoone suuqaytus dullani ala suuq nin ganacsiga ku fiican baan suuqaytus waxba gacmaha kuma hayo maal iyo dhaqaale buu ku yimid wixii oo dhan xataa mu oran u fiirso iyo fara qabsiinaysiyo suuqa ku bilbaabo waxaan hay ganacsiga naqaanahay iyo ku bilaabo isi mu oran wuxuu ilaahay ku barakeeyo maalkaaga iyo ehelkaaga bedullani ala suuqaytus muddo dabadeed ayaa asxaabtu waxay iska hayeen muhaajiriin dad soo qaxay dhulkoodii ka yimid baa la arkay ninkii Cabdiraxmaan oo dhalaalayo iftiimaya nabigu wuxuu ku yiri war Cabdiraxmaan de qofka arooska isma qariyo aroos baa markaa muddo markii la joogay markaas rasuulku ku leeyahay waxaad ka bixisay gabadha ilaa aroos qarin maayo waxa Cabdiraxmaan bin Awf yiri rasuul waxaan ka bixiyay laftimireed in leeg oo dahab u dhiganta miisaanka laftimireedka in leeg oo dahab u dhiganta ayaa ka bixiyay waana shalay u yimid faramanaa wuxuu sameeyay wuxuu iibiyay wuxuu dilaalay wuxuu kala rogayba markii bay la nin hibada u faradhuwan buu ahay ayaan sameeyay gabadhina waxa ka bixiyay raaca saareedan guursadayo inta leeg ayaan u bixiyay markaas rasuulku yiri awalin baro bishaat laxbaha hate casuumadeena weliima samaysto salaha waxay nagaga filan hibadooda sida ay u garanayeen asxaabta rasuulku sallallahu alayhi wasallam in hibadaadii waxaad ku wanaagsantahay farsamada gacanta aqoon inay tahay inaad garataa waxay noloshaada ku iftiimaysaa adduunyo iyo aakhiraba wixii aad u dhigin lahayd labaduba aad iyo aad ayay kaaga wax weyn kaaga taraysa hibadaasi haddaba aad u baahan tahay in aad garataa waxay kaa doonaysaa garashadeedu in aad garanayso jidkii loo marayay jidkii shayga haddaanad garanayn waad ka lumaysaa halgan iyo nafurna waa u baahan tahay inaad samayso abwaanada Soomaaliyeed arrimaha kamay gaabsan abwaanada Soomaaliyeed khayr kale arrimahaasi inay ka hadlaan kamay gaabsan saaraha baan soo qaadano abwaanka leena Saciid Saalax Axmed وأبوانيدا الصوماليات كمدا سبب تلماميا هيرك هيميلين ديالته وحي أدخو قادو سيادي هبدا دي وعد سهميلا أدخو قادو سانو يشو روحو ليه أبوان كاسي صعدا ليرلو وده هالقمو تونيدا ساب كيدا وصيما أدق يدل آن لا يسكو ساعدينه سلام يحب بايلا دولو سرقوياي سعدال وين رشية هذا ميل كمان صارته وصدر كواد هملا إن أتكو صوفتاي إن هذا ربع حتى هاي إن وحيات قراتي هملا ده هاي هملا أتوصل بس هذا ربع حتى هاي أيو أبوان كنت أنت هاي هبدي سينا وصل برجع أقول لنا سيدو كله تيتك أدوم ما يسوحها هذه آلة جرنين إيادنا وانسقان هبدي هذا كلامه جد كيلو مريه هذا ندوب كرنيبا قارئ لفتي سوا كيلها ندريق حريق ذا قران كرد يوجي
liderkii ku kacay danab dooc kastaaba waa u toos meel haddaad astaysato ood ku socoto od garanayso waa hubaal inaad gaadhayso mar haddii ay ku astaysan tahay halka aad doonayso inaad tagto lug ku tagtaya faras ku tagtaya mooto ku tagtaya gaari ku tagtaya mar haddii halkaad ku socotay ay astaysan tahay ood himiladaada garanayso toos ayaad meeshii u gaadhaysaa haddaba dhalinyaro tayi muhiimka ah ayaan jecelahay inaad si fiican u garataan waxa weeyaan halkan aynu waaqiceenna waa in waxaynu isku sheegaynaa la socdo meel afkii aan ahayn baynu nimid waynu ku cusubnahay waxaa laga yaabaa qofku inuu halkiisu sarreeyey uu aad iyo aad u sarreeyeyo uu isleeyahay waxaa sameey uu halkan wixii ka waayo marka waxa muhiima oo xoog u muhiima qofka muslimkii inanba inuu garto halka uu u socdo markuu garto halka uu ka bilaabayaa maa muhiim marka dad badan ayaa ka warrama sidii ay ugu astaysnayd halka ay doonayaan maha muhiim markaasi halkaad ka bilaabaysaa waxa muhiima halkaad ku socoto maha muhiim halkaad ka bilaabaysaa waxa muhiima halka aad ku socoto waxaa la yidhaha ragga qaarkood ayaa waxay doonayeen inay meel sare gaadhaan marka waxay ka bilaabeen meelaha ugu hooseysan haddaynu doctor ibraahim faki oo kale tusaale usoo qaadano ayaa wuxuu jeclaa inuu noqdo meelaha ugu sarsareeya inuu hudhaalnimada ka gaadho maamulidda hoteelada waaweyn wuxuu waxaa ka bilaabay weelmaydhid baan ka bilaabay managerka u sarreeya inaan noqdaan doonayay halkii aan doonayay kursiga ninkii ku fadhiya ayaan hormaraya habeen kasta maalin walba anoo leh am coming waan soo socdaa waxaan doonayaa halkaad ku fadhido oo kale inaan ku fadhiisto oo waan soo socdaa wuu waday muddo kadib wuxuu noqday qof caraba dalka Canada ninkii u sarreeyay xaqiijiye maamulidda iyo maaraynta hudheelada kow uu gaadhay waa from weelmaydhid tusaalayaasoo kalena aad iyo aad ayay u badan yihiin sidoo kale hibadaada qarsoon ee adoo aad leedahay haddii aad daboolka ka firto ood dhandhamiso lagu kari maayo tu kalaad u baahanaysaa ka sarraysa tu kaloo kasii sarraysaad u baahanaysaa waa sida biyahaasoo kale biyaha haddii aad dhandhamiso ood cabto faa'iidadii leeyi baad dareemaysaa laakiin haddayna caagadaa fuli weyno oo xidhnaato wax ku jira garan mayno tusaale waxaynu soo qaadanaynaa cumar cabdicasiis cumar bin cabdicasiis ayaa isagoo nin weyna la waraystay isagoo himiladiisii iyo hibadiisii u lahaa ka warramaya ayaa wuxuu leeyahay markaan dhallinyarada ahaa buu kasoo bilaabay dhallinyaranimadiisii ishtaqtu an atazawaja faaduma bintu cabdimelik fazawajtuha u fiirso wuxuu leeyahay himiladaydu markii hore waxay ahayd in aan guursado faaduma bintu cabdimelik waanan guursaday waa markuu dhallinyarada ahaa mar labaad wuxuu leeyahay waxaan jeclaaday in an akuuna waaliyan bimadiina inaan bara saab ka noqdo ayaan jeclaaday waana noqday bara saabkii dee labadaad doonaysaba cumar oo heshaya xaggeed ku socotaa wuxuu yihi waxaan haddana jeclaaday inaan noqdo amiirka muuminiinta o dhan waana noqday hayma wax kala haraya amiir almuuminiin markaa xaggeed ku socotaa u fiirso mar haddii aad dandhamiso oo daboolka ka furto ma istaagaysid sarawan baad usi soconaysa wuxuu leeyahy markaa wa ana alyawm ashtaaqu liljanna maanta waxaan doonayaa caashaqay inaan xaqiijiyo wixii aan rabay ee u dambeeyey ee himiladayda ahaa oo ah jannada ayuu leeyahay sidaa weeyaan bahashu himiladaada iyo kugu qarsooni waxay u baahan tahun in aad daboolka ka qaado marka adigaaban istaagayba midba midda ka sarraysa ayaad u baahanaysaa oo doonaysa laakiin inteena badan waxaa ka warramay Steve Shelder oo qoray buugga la yidhaahdo 100 dariiqo 100 wado ood ku dhiirigelin karta naftaada wuxuu isweydiinaya u leeyahay horta gartay marka aynu waxay naga dhintaan inaynu oyno
سمحين وإنا مركنا أرادنا قف قول قاري وكلا قف قول يستيلا أدو كني جاي مرمر إن دعك تلاقيها متكين ملاقيها بين العدي صار دعوانا يبا مت أما وحدي أما هر صارت قاري إنه المايا وواحد إكرام مركا وحولي صوتها سواحد كنت مع دا ستيف يا جودر واحد كنت مع دا واحد إنه واحد حلنا إنه واحد جايستنا أوبا عن إنه اسمه جديد بدأ وصل بعضه كاب قوليستاد إلمين يسكر يجاب كات داول يستي طول من أمك حول بدل ما كوجرته على دبارك كقادم وبيا دبارك رافرنا قلنا المعنوه شو أظن بان دبارك كقادمه واحد له أويسا كامل لميدا أي عادي كقبله في جيسان أيوليه هذه أينو إنتاسي إن طلابة قرشوا ولا ريال إنه وقت جاي كان إنه أينو كويس كاتينو قدم خلابات بينو تجين جرينا قدم خلابات وحويا قرشوا كي كمان محي إن قاعسش خلابات وي كي كمان محي نندي خلابنا قاعسش واحد سالك يجي تجينا مع والبحين تيدا هرتا قرشوا waxa way go'aansasho baan jeeda waxa la yiraahdaa kala doorashada hawlo kala duwan hadii dhowr arrimood oo iska leeyahay ama taas sameeya aanad lahayn ma ha go'aan lama yiraahdo waad ku qasban tahay mid kaliya haday tahay waad ku qasban tahay marka go'aansasho waxa la yiraahdaa kala doorashada dhowr arrimood markaad kala dooratay kadibna aad hawl geliso go'aanka marka waxa la yiraahdaa go'aan qaadashadu waa in horta marka hore uu jiro dhowr arrimood oo kala dooranaysa hadduu arrin kaliya yahay go'aan lama oranayo waad ku qasbantay inaad qaado ka labaad waa inuu yahay hawlgal soconaya go'aanku waxa weeyaan inuu hawl yahay aad markaa bilaabayso مثلا inan baaba ku fikirtay oo tiri waa inaan quraanka xafidaa go'aankaasi gaadhay waxay tiri waa inaan quraanka ilaahay xafido ayay garatay inuu wanaagsan yahay way go'aansatay waxa la doonayaa marka inay bilowdo aayad inay xafido ama laba ama saddex kaasa go'aan leeyahay aad bilowdo waa inuu amaliye soconayo u yahay nin mustashaara oo dadka la tiriyo Mustafa Abu Sa'd leeyahay ay gabadhi u timid oo ku tiri waxaan doonayaa ina Bulgaariya ogaada inaan masaajid lahayn masaajid inaan ka dhisto wuxuu ku yiri masaajid baa doonaysa inaad dhisto go'aan ka saddex la timid ha Bulgaariya ka dhisaysa ha imisa ku soo gashay lacag bishii mushaarkeyga ilaa iska xadidnaa uu sheegtay Bulgaariya ayuu waraystay ninkii la taliyaa mustashaarkii markuu Bulgaariya ka waraystay ayuu soo ogaaday qiimihii uu ku kacay masaajidku oo dhul iyo waxa looga baahnaa dad muslim oo Turkiya magaalada degan yihiin ayuu soo ogaaday markuu soo ogaaday uu qiimeeyay mushaarkeyga uu qiimeeyay bil walba bankigaaga uu tago inta waa in laga jiito masaajidkii Bulgaariya wuxuu ilaa mustashaarku Professor Mustafa halka Francisco wax ku bartay waa Kuwaiti cilmiga horumarinta aad uga hadlaa wuxuu leeyahay inantaas waxay dhistay masaajidkii bishii horeysay laga jiitay lacagta leebkii horeeyay mar haday dhigtay ka weeyo go'aanku wixii aad qaadato doorato waa in uu la socdo amal la socdo waxaan doonayaa in aan sameeyo wixii markaad sameynayso quraanka doonayaa midna inaan xafido aayad waxaan doonayaa in aan samaysto talaabad markaad qaadad wixii samaysay marka ayuu waxa go'aanku saas u noqonaya waxa ku xiga oo ku dadaalida oo nabigu inuu dardaaraya kamida xilgu tasho qodobkani waa qodob muhiim ah bila aadaka adduunyada oo dhan ku nool waxa u baahi badiyeen inay fahmaan mas'uuliyadda waxa la yiraahdo taa hadii aad fahanto noloshaadu way wanaagsanaalaysaa taada adduunyada iyo taada aakhiraba micnaheedu muxuu yahay xilgu tasho waxa weeye wixii aad garatay aad go'aansatay inaad joogtayso xilkeega aad qaado waxay yiraahdaan culimadeena Soomaaliyeed kelmadda af Soomaaliga halkeegii la dhigay waxa kamid ah kelmadda xildhibaan ayaa kamid ah halkeegii kelmadda la dhigay waayo waxay ka soo bilaamaysaa xilkas qofku xilkii uu gartay ko mar labaad xilqaad wixii uu gartay uu qaaday xilkii
mar saddexaadna xildhibaan buu noqday xilkii baa culaysay oo dhibay ma joojinayo markaa ma tuurayo wuu gartay intuu leegayay wixii uu go'aansaday wuu culaysiyey wuu la soconaya ma joojinayo weliba halkan markaynu joogno dhowr qodob waxay nagu kalifaysaa marba marka ka dambeeya mas-uuliyadda ina saaran inteennaa meesha joogta rag iyo dumar dhalinyaro iyo qof weynba way sii culusaanaysaa kow waxaa ka ah inagoo soo degnay dhul qurba ah u fiirso mas-uuliyaddeenna hadalkaan doonayo in aynu si fiican u fahamnaa qodobkana ka mid ah waxa weeyaan mas-uuliyaddu halkan aynu joogno maanta ooshay faransiiska mas-uuliyaddeena way sii culusaanaysaa sababahan awgood kow waxaynu nimid dhul nidaam ka jiro oo dhisan oo habaysan oo wanaagsan inaynu fahanno dadka aynu nimid meel cidlamaynaan nimin nidaamkoogii inaynu ilaalino mas-uuliyad kale waddankii aynaan ku qabin ayayna fuulaysa meel habaysan oo nidaam iyo kala dambayn leh ayaynu u nimid sida nidaamkooga iyo waxooga aynu ugu nimid u hagaajino waa mas-uuliyad culaysina saaraysa talabaadna waxa weeyaan mas-uuliyadda ina sii culusaynaysa ee ina sii saaraysa dhaqan iyo ilbaxnimo iyo xadaarad iyo diin baynu la midan lahayn tii inaynu ilaashanaa maanta way kasii culusaanaysaa meeshii aynu joognay ee dadku ina sii saarayeen dhinacayna la qabanayeen masaajid lahaa ee culimo lahayd ee waa mas-uuliyadda qodobka labaad ayna sii saaraya qodobka saddexaad ee mas-uuliyadda ayna sii saaraya waxa weeyaan kaalintii culimada ama culimadeenna abwaanadeenna aqoon-yahankeenna oo meesha ka maqan meelaha kale la degay waxaa loo tegay xarumo dhan oo isku qoofalan masaajidkii oo dad inagoo kaliya ay sii diyaariyeen masaajidkii iyo milcaamadii iyo markaskii dhaqanka oo sii yaalay ay saddexdaa qodob waxayna degaysiinayaan mas-uuliyadda intaynu leena waad arkaysaan maanta intaynu isku hor fadhino iyo ooshay inta joogta marka waxa weyaan meel waloo la bilaabayba inan yar ama inan yar ama nin weyn ama gabar weyn ubaa bilowday dareenkaa maanta inaynu qaadanno saddexdaa qodob markaynu eegno mas-uuliyaddu way culusaanaysa waxaa la yidhi dhagaxna meel dhowbu ku dhacaa dhawaaqna meel fog waxa weya dadkeenna halkan soo degna ubadkeennaa yaryar berri toole haddaynaan wax wanaagsan uga tegin way jiraan qowmiyado badan oo tirtirmay soomaalidii faransiiska timid way tirtirmatay in la yidhaahdo ama uu muddo dabadeed la yidhaahdo inanta bankiga ka shaqaysa kii aniga soomaalikii diiniya waxbaba aan ka garanahayn waxa weeyaan kolba sidaynu xayndaabka u samayno inagu saddexdaa qodob mas-uuliyadda ina sii culaysinaya mas-uuliyadda ayaa culays sii siinaysaa loo baahan yahay mas-uuliyadda waxa u horeysa qofku inuu horta naftiisa kow ka ahdo kadibna ehelkiisa kadibna dadka uu la joogo waayo ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara dadoo horta marka u horeysa naftiina ka xoreeya naar kadibna ehelkiina ka xoreeya saddexdaa qodob waxay ka mid yihiin ixris calaa maa yanfacuka haddaad iska aragto garasho iyo go-aansasho iyo xili guntasho xaydaabkii horu markaad ku jirtaayo sideeda haddaad iska weydo waxaad gelaysaa xaydaab kale oo ka duwan oo la idhahdo umniyaad waa yididiilown waxaasaan samaynaa wallahi waxaasaan u baahanay wax inaad afka ka tidhaahdo uunbay keenaysaa markaa fadhi baa inagu sii dhacaya ma keenayso in mas-uuliyaddii aynu sideedii u qaadno oo aynu dhaqaajino matalan qof kastoo inaga mid wanaagga wuu garanaya laakiin sirtu iyo dhananku wuxuu ku jiraa siduu qofku xil mas-uuliyadda u qaadon inuu isagu xilkiisa saaro uu u dhaqaaqo naf iyo hantiba u bixiyo weeyaan oo dumar iyo ragba gacmaanta isu qabsano bal wuxuun aynu samayno oo aynu ka bilowno inaynu helno mawlac halka hoose ee guryaha mawlac aynu ka bilowno 20 ciyaala isku keenno 5 qof isku keenno culimadii way joogeen way hadlayeen iyagii waa kii waxna ka dhawaajinay garabka wanaagii oo wanaagga la isla dhex maro ayay muhiimaddu noqonaysaa haddii kale waxaa ku xigi doona waqti aan wixii lasoo qabanaynin inuu noqdo saddexda qaybood ee halayna kulamadeena dambe ayaan ka dhigan doonaa hadduu ilaahay idhaahdo waxaana ku xidhan tahay sidii idinku aada isku soo abaabushaan aada usoo diyaarsataan wejiyo cusubna inaan laydinku soo casuumooy ayaa iman doonta hadduu ilaahay idhaahdo ilahay waxaan baryayaa inuu xaqayna waafajiyo
إلهي وحبريا وحكسين السماين إنه كدغو ميدو يسوي رالي كياي إلهي وحنا برينا إنه نوع هجاتيو إنما لن يرى إياه حبلها إياه دمر قدامه هل كان مشاكل كوفر بدي كل 10 كلا يديار قصاصا صوابها دليا خلافك قويسك الصومالية قربها كنوع أو وحي ربعها النحية إن شاء الله أهلا وسهلا من حقيقة لي هاي إذن كيد كحرات إلهيو ربي غيونا عوية رحمة قويسك نوغل هرمار كان إلهيو نوسخ الكادونية كآخرة هذه أنا أصيبي إلهي بان أبال مريتك الدنيا هذه أنكر مرينا ونفتي ذي الشيطان وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وبالله التوفيق والسلام عليكم. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام